meel fiican ayuu marayaa goolalinta horyaalada Yurub shanta horyaal 10 xidig ugu sareysa ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka kaalinta koowaad waxaa ku jira Immobile oo leh 25 gool wuxuu u dhigay kooxda kubadda cagta Lazio labaad waxaa ku jira Roberto Lewandowski oo ciyaara kooxda kubadda cagta Bayern Munich 22 gool ayuu leeyahay kaalinta saddexaad waxaa ku jira Cristiano Ronaldo oo ciyaara kooxda kubadda cagta Juventus 20 gool ayuu leeyahay Tim Werner oo ciyaara kooxda Ari Libiskon ayaa leh 20 gool James Vardy oo ciyaara kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa leh 17 gool kaalinta lixaad waxaa ku jira Romelu Lukaku oo ciyaara kooxda kubadda cagta Inter Milan kaalinta toddobaad waxaa ku jira Sergio Aguero oo ciyaara kooxda kubadda cagta Man City 16 gool ayuu dhaliyay kaalinta sideedaad waxaa ku jira Joao Pedro oo ciyaara kooxda kubadda cagta Gallery 15 gool ayuu leeyahay kaalinta sagaalaad waxaa ku jira Kylian Mbappe oo ciyaara kooxda kubadda cagta PSG 15 gool ayuu leeyahay kaalinta ugu dambeeyay waxaa ku jira Leo Messi Barcelona oo ciyaara 14 gool ayuu leeyahay Leo Messi sanadkii hore ayuu ku guuleystay kabtaan laakiin sanadkan wuxuu ku jiraa kaalinta 10aad wuxuu leeyahay 14 gool